sida loo joojiyo inaad waqtigaaga lumiso imise jeer aad isku dayday inaad wax qabato balse aad ku guuldareysatay inaad bilowdo imise howlood ayaa kaa habsaamay ayaad hadda dhammaan lahayd mees aragtaa adigoo aan gaari karin guulaha saaxiibada oo iyaga howlahooda hore u qabta waqtigu waa hantida ugu qaalisan ee aad haysato iyadoo dad badan ay xaqiiqada ka warhayaan ay haddana ku sii wadaan inay waqtigooda lumiyaan dadka badankoodu waqtigooda uma lumiyaan si ku talagal ah balse waxay sameeyaan qaladaad dila waqtigooda iyagoon ogaanin muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa qaladaadka ugu waaweyn ee qofka waqtiga ka dila iyo sida loo joojiyo qaladaadkaas isla markaana looga faa'iideysto waqtigaaga waxyaabaha kaa lumiya waqtigaaga kow adigoo suga inta aad niyad u helayso howl aad qabanayso imise jeer ayaad howl aad qabanayso dib u dhigtay sababtoo ah waxaad rabtay inaad sugto inta aad niyad fiican u helayso howsha qabashadeedu ee jawiga kaaga hagaagayo aan kuu sheego xaqiiqo jirta niyada fiican ee aad sugtaa waxaa laga yaabaa inaana ku imaan xataa haddii ay niyadaadu mar fiicnaato mar kasta sidaa u sii fiicnaan mayso haddii aad sugto intay niyadaadu hagaagayso ee aad niyad fiican u helayso howsha aad qabanayso waxa aad go'aansanaysaa inaad howl qabato marka aad ku faraxsantahay oo kaliya qabashadeeda sidaa darteedna howsha aad qabanayso ku dhammaymayso waqtigaaban gudihii hadafkaagana hore u gaari maysid dadka howlahoodu si dhaqsi u dhameeya ama guulahooda gaara maaha qaar niyadooda iyo jawigooda markasta fiican tahay oo waxay qabanayaan markasta niyad u haya balse waxay ka hor yimaadaan waxyaabaha niyadooda doonaysa waxaana howl qabtaan iyagoo niyadoodu jeclaysiin inay howl qabtaan si ay hadafyadooda dhaqsi u gaaraan sidaa daraaddeed weligaa ha sugin inaad howl qabato inta aad niyad u helayso ee jawi kaaga hagaagayo ee bilow howsha kuwa muhiimka xataa adigoo niyad u haya labo adigoo hadafyo lahayn haddii aadan hadafyo lahayn dabcan daneen maysid waqtigii kaa lumaya sababtoo ah waxaad waqtigaaga kaga faa'iidaystid ma bahaysatid waxa kaliya ee waqtiga loo isticmaalaa waa in lagu gaaro hadafyo haddii aadan hadafyo lahayn hadda bilow inaad hadafyo samaysato si aad ugu faa'iidaysato waqtigaaga ka taqlus waxyaabaha ku jeedinaya oo diiradda saar waxaad qabanayso qalad ugu weyn ee ay dadku sameeyaan markii ay isku dayaan inay howl qabtaan waa inaan howshay qabanayaan boqolkiiba diiradda saaran haddii aad teleefonkaaga ku hadasho aad facebookkaaga jeegarayso aad whatsappkaaga egto ama aad messengerkaaga qof ku jawaabto adigoo howl qabanaya lagama yaabo inaad howsha waqti xadidan ku dhammaydo haddii aad rabto in howlaha lagaaga baahan yahay aad waqtiga loogu talagalay ku dhammayso ilow wax kasta oo aan ka ahayn howsha aad qabanayso ka bax oo log out garee facebooka messengerka iyo dhammaan akoonada kale ee aad ku leedahay baraha bulshada seelengeli mobilkaaga xagga kale u rog diiradda saar oo kaliya howsha aad qabanayso si aad dhaqsi ugu dhammayso howl kasta habeenkii intaadan seexan ka hor qor oo sii qorshayso waxaad qabanayso maalinimada haddii aadan samaysan liis qeexan oo ay ku qoran yihiin dhammaan howlaha ku muhiimka ah ee aad maalinimada qabanayso wax uu waqtigaaga kaa ridi doonaa oo aad ku dabaqi doontaa intaad ka fikirayso howlaha ay tahay inaad qabato waxaa laga yaabaa inaad ku caajisto howlna si buuxda u dhammayn maysid maalinimadaaduna waxay kugu dhaafi doontaa adigoo wax soo saar lahayn sii qor oo samayso liis ay ku qoran yihiin howlaha aad maalinimada qabanayso subaxdiina waxaad soo kici doontaa adigoo diyaarsan oo maalinimadaaduna garanaya waxa ay tahay inaad qabato samayso howl cayaman waqti cayaman oo aad qabatana u samee waxaa laga yaabaa in taladani dadka qaarkood ay ku adkaato laakiin waa talo aad si fiican ugu meelmari karto ku qasab naftaada in howl aad qabanayso in waqti gaar ah oo aan wax kale qaban siiso tusaale ahaan 8 aroornimo ilaa 12 barduhurnimo inaad howl gaar ah diiradda saarto 4 galabnimo ilaa 6 aad howl gaar ah diiradda saarto taasi waxay ku ogolaanaysaa inaadan caajis iyo waasi wax fursad ah siin